iyadoo maalmihii ugu dambeysay soo dhoweyno kala duwan loo sameynayay dhalinyarta baahiyaha gaarka qaba ee guulaha ka soo hooyay tartankii ciyaaraha Somaliland iyo ciyaartii dhex martay dhigooga dalka Djibouti ayaa waxaa maanta ku casuumay isla markaasina u sameeyay hadhimo sharafeed meeyarka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi waxaana ka soo qayb galay hadhimo sharafeedka uu fidiyay meeyarka magaalada Boorama dhalintaasi bahda ciyaaraha ee gobolka Awdal mas'uuliyiin ka socday heer qaran waxaana munaasabadaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinta ciyaaraha Somaliland isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal meeyarka magaalada Boorama iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kala duwan iyadoo sidoo kalena halkaasi ay ka mahad celiyeen mid ka mid ah dhalintaas soo guuleystay waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxaan kaloo salaamayaa dhalinyarada ku soo guuleysatay labada koob gobolka ayaa iska lahaa koobna Somaliland oo dhan ayaa iska lahayd waxa kaloo howlqabadkayga ka dhigaynaa howlqabadka dhow sidii aan u dhislayn kooxaha bida sida basketka ciyaaraha orodada dhammaan halkan sharafta maayarka ugu deeqay waxaan leenahay gudoomiye waan ka gudoonay hadal badan maayo insha Allah nimankaasi dariiq dheer bay soo mareen bay ahayd dariiqii wuxuu keenay maanta in la barto dariiqii wuxuu keenay in dadyo badan u joogsadaan oo heer madaxweyne gaarsiisan runtii intaasina waxay ku timiday dadaal muddo soo socday bay ahayd guushuna dabcan dadka way muujisaa guuldaraduna way qarisaa wax iska caana taasi noloshoo dhan marka nimankan cunto lagu maamuusi maaye noloshooda la eegi waxyaabaha ka dhiman ee nololeed baa loo buuxini qof kaliyana la saari maayo culeyskeed ummadoo dhan bay u taallaa sharaf bay noo tahay qarankaad sharaf u soo hoyseen dalkaad sharaf u soo hoyseen gobolka iyo degmadaba sharaf baad u soo hoyseen idinkuna sharaf baad naga mudantihiin dalkiina aad ka mudantihiin farxad noo ah oo guud ahaanba farxad u ah Somaliland guushaad soo hoyseen waa midata aad gudaha Somaliland ka soo hoyseen aad gobolka soo hoyseen iyo talabaad waa inaad Somaliland oo dhan u soo hoyseen guul muuskayaga iyo jacaylkaydii qabnaa noqon maayo un qada kaliya la cuno la xijacadna dareensiiseen annaguna waxaan doonaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dareenkaad qabtaan idin la qabno wax kastoo ka maamul ahaan aanu qaban karno inaan idin la qabano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan rajaynayaa sidii hore si ka dhow imika hadii inaan wada shaqeyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo dalka walaalaheena Djibouti ciyaariyaad la gasheen tartankii guulba ka soo hoyseen gobolladeena kale Somaliland guulbaad ka soo hoyseen taas waxay muujinaysaa in waxay nafaraysaa inaan marka gaar idin eegno oo nooga tilmaanaataan dadka kale shaqooyin badan oo aad qaban karaysaan oo dawladda hoosiyada meelo kale ka banaan baa jira aqoontiinana waan eegaynaa haddii Ilaahay yiraahdo intii karaanka ayana wixii aan qaban karno waxaan idinka hakraynaa ma jiro dadka baahiyaha gaarka laha dad laga tagay ma laakiin duruufaha iyo awoodaha un baana saamixin laakiin idinku waxaad muujiseen wax walidigu qaban karo sida uu maayarku idin sheegay ka dawlad ahaan iyo ka qaran ahaan madaxweyne ka soo bilow ilaa maayarka in la joogo ilaa isku duwe iyo barasaab ku xigeen waxaan diyaar idigu nahay wixii la qaban karo in la qabto waxaan mahad celinayaa buuri marka koobaad Ilaahay marka labaadna waxaan mahad celinayaa buuri maayarka magaalada Saleebaan Xasan Xadi oo runtii noo sameeyay buuri maanta qada sharaftan halkan aan iskugu imanay barasaabka gobolka iyo maayarka iyo degmada iyo dawladaba waxaan ka codsanaynaa buuri inay dadka baahiyaha gaarka qaba ay caawiyaan runtii dad badan oo jaamacada ka soo qalin jabiyay weeyaan in badan runtii oo shaqaysa way jiraan inaan shaqeyno fara badan way jiraan runtii in gobolka iyo iyagu ay isku xirmaan baan insha Allah taala rajeenaynaa buuri oo ka awood ahaan maayarka iyo barasaabkuba waxay u qaban karaan ku caawin karayaan ay ku caawiyaan buuri dadka baahiyaha gaarka leh Maxamed Cabdullaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Boorama